makhluuq badeed yar ayaa ka soo baxay hoosta badda wuxuuna yimid magaalo dadka ku nool ay aaminsan yihiin oo noocyadiisa oo dhan ay yihiin wax xun oo khatar badan sidaas darteed wuxuu ku qasbanaanayaa inuu la dagaalamo ugaarsatada doonaya inay qabtaan waxaa jiray tuulo yar oo kalluumaysi oo la yiraahdo Bortoroso oo ku taala xeebta Talyaaniga dadka tuuladaas degan waxay sheegi jireen sheekooyin ku saabsan bahalada badda waxaana jiray dad ka fogaan jiray meelaha lagu arko balse jiilal kalluumaysato ah ayaa si joogto ah u ugaarsan jiray Dhulka oo ahaa bahal badeed yar oo qoyskiisa caawiya isagoo xoolaha badda u raaca ma ogeyn in dadka baniaadamku ay necab yihiin noocyadiisa wuxuu lahaa riyo ah inuu mar uun arko dunida dadka balse hooyadiisa ayaa si adag uga mamnuucday inuu la xiriiro baniaadamka si kastaba ha ahaatee marka uu shaqadiisa u baxo wuxuu fursad u helaa inuu raadiyo waxyaabaha dadka ka lumay ee hoosta badda ku dhacay maalin maalmaha ka mid ah isagoo raadinaya alaab ayaa Dhulka waxa arkay nin gashan dhar quusitaan oo duugoobay wuxuu isku dayay inuu dhuunto balse ninkii ayaa soo dabagalay ilaa uu ku gaaray dhagax weyn markii uu ka baqay wuxuu ogaaday in qofkaas aanu baniaadam ahayn balse uu yahay bahal badeed kale oo la yiraahdo Alberto ayaa qaatay alaabtii dadka wuxuuna u dabaashay jasiirad u dhow Dhulka oo xiiseynayay waxa uu samaynayo ayaa raacay markii uu arkay Alberto oo biyaha ka baxay oo isu bedelay qof baniaadam ah Dhulka aad buu ula yaabay maadaama aanu weligii ogeyn intaasi suuragal tahay Alberto ayaa markaas kor u jiiday si uu tuso in isaguna sidan isu bedeli karo Dhulka markii ugu horeysay ayuu dhulka ka soo baxay aad buu uga naxay isagoo garan leh sida uu eg yahay qof laakiin Alberto ayaa isku dayay inuu dejiyo si kastaba ha ahaatee Dhulka wuxuu doortay inuu dib ugu noqdo badda oo iska dhigo in waxba dhicin habeenkii oo dhan ayuu fikirsayay subaxdii xigtayna wuxuu mar kale u dabaashay isla jasiiradii markuu isugu dayay inuu naftiisa ku dhiirigeliyo inuu biyaha ka soo baxo Alberto ayaa yimid oo u sheegay in wax dhibaato ah aysan jirin maadaama uu weligii aanay ku dhicin cuf isjiidka dhulka Dhulka wuu ku dhibtooday inuu istaago balse Alberto ayaa ka caawiyay inta uu baranayay Alberto ayaa u sheegay in aabihiisa safar ku maqan yahay sidaas darteedna ay keligood ahaan doonaan kadib wuxuu bilaabay inuu Dhulka tuso waxyaabo dadka ay leeyihiin waxa ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa buug xayeysiinaya baaskiil yar oo la yiraahdo Vespa maadaama aysan haysan lacag ay ku iibsadaan Alberto iyo Dhulka waxay go'aansadeen inay iyagu dhisaan iyagoo isticmaalaya qashinka ay ka helaan badda ugu dambeyntiina waxay sameeyeen Vespa qurux badan oo gacantooda ay ku naqshadeeyeen laakiin Dhulka wuxuu dhulka ku sugnaa muddo dheer sidaas darteedna wuxuu qasbanaaday inuu si degdeg ah guriga ugu laabto hooyadii ayaa dagaal bilowday iyada oo weydiisay halka uu ka yimid laakiin ayeeyadiis ayaa difaacday oo tiri aniga u diray inuu noo keeno cuntada badda subaxdii xigtay labada wiil mar kale ayay kulmeen waxayna go'aansadeen inay tijaabiyaan mootadoodii ay sameeyeen markii Alberto hoos uga soo daadanayay buurta mootadii ayaa kala jabtay wuxuuna ku dhacay dhulka isaga oo dhaawac yar ka gaaray ugu dambayna wuxuu ku dhacay biyaha markaas kadib wiilashu waxay bilaabeen inay waqti badan ku qaataan dhulka si ay mootadooda u hagaajiyaan tijaabooyin badan ay sameeyeen isla markaana ay aad isugu soo dhawaadeen kadib markii ay sameeyeen mooto kale waxay fikrad fiican ku go'aansadeen inay isla wadadii hoos uga soo dhacaan buurta waxay ku sigteen inay ku dhacaan dhagaxaanta laakiin way ka badbaadeen dhanka kale waalidkii Dhulka waxay arkeen inuu wiilkoodu ku badanayo dhulka markaas ayay dabagaleen markay ogaadeen inuu kor ugu baxo biyaha waxay go'aansadeen inay u diraan badda hoose si uu ula noolaado adeerkiisa oo ah nin yaab leh oo maqaarkiisu cad yahay oo xubnihiisa gudaha ay muuqdaan Dhulka isagoo diidaya inuu tago wuxuu aaday jasiiradda si uu Alberto ugu sheego doodiisa uu la galay waalidkiisa kadib markay sheeko yar wadaageen waxay go'aansadeen inay ka cararaan oo u baxsadaan magaalada Bortoroso markii ay xeebta gaareen waxay isticmaaleen doon burburtay si ay qarsoodi ugu dhuuntaan magaalada isla markii ay suuqa yimaadeen waxay la kulmeen kalluumaysato gacanta ku sita kalluun iyo xayawaano badda laga keenay taas oo ka nixisay Dhulka laakiin Alberto ayaa dejiyay intay halkaas sii marayeen waxay arkeen nin wata mootadii Vespa waxayna go'aansadeen inay la hadlaan laakiin caruur ciyaaraysay ayaa kubad ku soo tuurtay waxayna weydiisteen inay dib ugu celiyaan Dhulka oo aan weligii kubad ciyaarin ayaa kubadii si qalad ah ugu dhuftay mootada nin isla weyni iyo kibir badan ku faana ayaa laha mootadii ninkii oo caro ka qaaday in mootadiisii la taabtay ayaa wiilasha ku bilaabay cabsigelin iyo hanjabaad laakiin markaas ayaa gabadh la yiraahdo Juliet timid oo waqtiga saxda ah badbaadisay wiilasha kuna kaxaysay baaskiilkeeda markay khatarta ka badbaadeen Dhulka ayaa weydiiyay Juliet sida uu ku heli karo mooto Juliet waxay u sheegtay in ninka hadda mootada watay uu lacag ka helay isagoo ku guuleystay Bortoroso Cup waana tartan ay ka mid yihiin dabaal baaskiil iyo cunista baasto oo magaalada dhexdeeda lagu qabto Juliet oo doonaysa inay ka adkaato ninkii mootada lahaa oo marar badan horay ugu guuldaraystay Dhulka ayaa fikrad keenay waana inuu la midoobo oo hal koox ay noqdaan saddexdii ayaa rasmi ahaan hal koox ku noqday Juliet ayaa bilowday tijaabooyin si loo ogaado qofka ka soo bixi karo qaybaha kala duwan wiilashu ma geli karaan biyaha markaas ayay iska dhigeen inaysan dabaalan karin si Juliet qaybtaas u qaadato sidaas darteed Dhulka wuxuu qaatay qaybta baaskiilka halka Alberto loo xil saaray tartanka cuntada kadib Juliet waxay wiilasha geysay gurigeeda oo ay halkaas ku baraysay aabaheed oo lagu magacaabo Maasim waxaa jiray nin kalluumaysato ah oo noloshiisa ku bixiyay ugaarsiga bahalada badda markuu Dhulka uu arkay sida ninkaas uga go'an tahay inuu qabto xayawaanka noociisa ah wuu ka baqay wuxuuna si kama ah biyo ugu tufay wejiga Alberto taas oo keentay inuu hortooda isugu bedelo bahal badeed markii ay cashada wada cunayeen Juliet waxay aabaheed u sheegtay inay samaysteen koox tartanka ah kuwaas oo ka qayb galaya tartanka sanadkan waxayna ka codsatay lacag ay isku diiwaangeliyaan laakiin Maasim wuxuu sheegay inuusan kalluun badan soo qabanin maalmihii ugu dambeeyay sidaas darteedna uusan caawin karin si kastaba maadaama Dhulka iyo Alberto ay yaqaanaan nolol badeedka waxay ballan qaadeen inay caawiyaan kalluumaysiga
subaxdii xigtay intii Juliet ku mashquulsanayd tababarka baaskiilka labada saaxiib waxay la baxeen maasim meel kalluun lagu dabo markay xabadda bisada la dagaalameen kadib Luka wuxuu kalluumaysatada u sheegay in meeshaasi tahay qabuuraha jinniyada oo kalluunka ka cararaan markaas Alberto ayaa sheegay goob kalluun badani ku nool yihiin maasim markuu raacay taladooda wuxuu kalluunka buuxiyey doontiisa markay kalluumaysiga dhameeyeen Luka Alberto iyo Juliet waxay u ordeen miiska diiwaangelinta tartanka laakiin halka waxaa yimid Cole waana ninkii mootada Vespada lahaa oo ay wehliyaan laba qofood wuxuuna ka dhacay lacagtii ay isku isdiiwaangelin lahaayeen si lacagta loo soo ceshado Alberto ayaa Cole dagaal ugu yeeray laakiin Luka iyo Juliet ayaa ku bilaabay kaftan iyo aflagaado iyagoo ku qoslayay shaarbihiis foosha xun markaas ayuu Cole dareemay in lagu caayay lacagtii uu dhacay dartii kadibna lacagtii ayuu dib ugu celiyay Luka saddexdoodiina way isdiiwaangeliyeen kadib waxay bilaabeen tababar intii Juliet dabaasha ku jirtay Cole ayaa doonay inuu doontoodii ka jabiyo laakiin Ganeri ayaa mishiinka ka leexiyay ilbidhiqsi uun ka hor intaysan isku dhicin sidaas darteedna biyaha ka soo faniinay ayaa wejiga Alberto ku daatay taas oo ka dhigtay inuu isu bedelo bahal badeed dadka hortooda Juliet waxay u carootay Cole halka Luka uu shukumaan ku daboolayay saaxiibkiis balse si kama ah ayuu ugu riday biyaha taas oo keentay in Cole arko dibkiisa bahalka isla waqtigaas waalidiintii Luka ayaa ogaaday maqnaanshihiisa waxayna yimaadeen magaalada Portoroso si ay u raadiyaan waxay caruurtii ku tuureen ceelka biyaha iyaga oo kubad ku ciyaaraya si ay u soo ogaadaan bahalada ku qarsoon magaalada markii ay ka badbaadeen in la ogaado Luka iyo Alberto waxay ku laabteen guriga Juliet halkaas ayuu Luka ku maqlay qosolka hooyadiisa oo arkay iyadoo suuqa ku dhex tuuraysa caruurta biyaha isagoo ka baqaya in waalidkiisa ay helaan oo badda hoose ku celiyaan wuxuu u sheegay saaxiibkiisa waxa uu arkay laakiin maasim ayaa yimid wuxuuna Alberto u diray inuu ka caawiyo shabaqyada taas oo Luka iyo Juliet keligooda uga tagtay markaas ayay sheeko bilaabeen Julietna waxay uga warantay waxbarashada dugsigeeda markay ogaatay inuu xiiseynayo xidigaha iyo cirka waxay u qaaday meel telescope u yaalo halkaas ayay si wada jir ah ugu daawanayeen qoraxda iyo xidigaha markii ay qolka ku soo noqdeen Juliet waxay tustay buugaagteeda Luka aad buu ula dhacay aqoonta wuxuuna ka helay xiiso badan oo uu doonayo inuu wax ka barto waxyaabo badanna uu ogaado iyo inuu iskuul tago wuxuuna ka codsaday Juliet buuga xidigaha laakiin iyada ayaa hadiyad ahaan ugu deeqday isla markaas ayaa Alberto ku soo noqday isagoo ka hinaasay sida Luka iyo Juliet isugu soo dhawaadeen wuxuuna ku casuumay saaxiibkiisa inuu la socdo kadib waxay bilaabeen inay magaalada ku wareegaan ilaa ay gaareen dukaanka mootada oo lagu iibinayay Vespadii ay muddada dheer ku riyoonayeen intay socdeen Luka wuxuu Alberto uga warramay waxa uu bartay wuxuuna u sheegay in xidigaha dhab ahaantii yihiin kubado dab ah oo aad u waaweyn mana aha kalluuno yar sida ay hore u moodayeen laakiin Alberto oo hinaasan ayaa yareystay hadalkiisa wuxuuna ka hadlay mootada uu ku riyoonayo markaas ayuu Luka yiri iskuulka ayaa laga yaabaa inuu ka xiiso badan yahay mootada hase yeeshee Alberto ayaa ka niyad jabiyey isagoo ku yiri weliga laguma aqbali doono iskuul marka ay ogaadaan inaad tahay bahal badeed isla markaas ayaa Cole yimid kadib wuxuu ku soo tuuray fallaar badeed wuxuu amar ku siiyey gareeno iyo kaasiyo inay qabtaan Alberto isaga oo caloosha ka garaacayay laakiin Luka ayaa fallaaraha qaatay wuxuuna ku hanjabay inuu dhaawici doono haddii aanay iska dayn markaas ayay wiilashii saaxiibkiisa sii daayeen labaduba waxay u carareen guriga Juliet halkaas oo ay si nabad ah ugu wada seexdeen maalmaha oo socday saaxiibada waxay tababar ku jireen oo maalin kasta ku fiicnaanayeen Luka wuxuu si gaar ah ugu tababaranayay inuu baaskiil ku fuulo buuraha magaalada isagoo culeysyo waaweyn qaadaya waliba isagoo aan dhididin laakiin maalmaha oo socda Luka iyo Juliet waxay waqti badan ku qaadanayeen wada akhris iyo barashada saynisyo kala duwan sida xoolo baarista xidigaha iyo culumta kale taasi waxay Alberto ka dhigtay mid kelinimo dareemaya oo hinaas badan laba maalmood ka hor tartanka sanadlaha saddexdii ayaa isku diyaarinayay tababar Luka wuxuu waday baaskiilkiisa isaga oo Juliet iyo Alberto wada qaadaya markay marayeen bartamaha magaalada wuxuu arkay waalidkiisa oo fadhiya ceelka biyaha agtiisa si uu uga baxsado wuxuu maray wado gaaban oo toos u geysay buurta dusheeda halkaas Juliet waxay ku tustay tareen u socda magaalada Genoa halkaas oo dugsigeedu ku yaalo Luka wuxuu weydiiyey haddii isna uu tagi karo iskuulkaas Alberto oo ka carooday fikradda ah in saaxiibkiisa uu ka tago ayaa hadalka kala dhex galay wuxuuna ku yiri hoos ka deg markuu arkay in Luka uu ka baqayo inuu hoos uga daato buurta dhaadheer Juliet ayaa isku dayday inay dejiso laakiin Alberto mar kale ayuu hadalka ka jaray wuxuuna fuulay baaskiilka si uu degdeg ugu soo daato buurta isaga oo si xun ugu sigtay inuu dadka ku dhaco ugu dambayna badda toos ayuu ugu dhacay si aan loo arkin markay biyaha ka baxayaan labada saaxiib waxay u dabaasheen xeeb cidlo ah halkaas ayaa Luka oo aad u xanaaqsan dagaal kula kacay Alberto waxaana dhex maray muran weyn oo guud ahaan qabsaday markaas ayay Juliet ugu dambayn heshay Lukana wuxuu go'aansaday inuu weydiisto inay iskuulka la tagto Alberto isagoo aad ugu maseersan ayuu Juliet tusay inuu yahay bahal badeed si ay uga baqdo isaga iyo Luka laakiin Luka wuxuu iska dhigay inuusan garanayn cidna wuxuuna qaylo ku bilaabay si uu uga dhigo in Alberto yahay bahal cabsi leh markuu guriga yimid Luka aad buu u welwelay isagoo ka fikiraya waxa ku dhiri kara saaxiibkiisa Juliet si ay u dejiso waxay biyo ku shubtay Luka taas oo ku muujisay in isaga qudhiisu yahay bahal badeed Luka oo riyadiisii burburtay wuxuu ku noqday jasiiradii halkaas oo uu ka helay taawar burburay iyo Alberto oo aad u murugaysan markii uu goobta daawanayay wuxuu derbiga ka helay calaamado wuxuuna ogaaday inay ahayd tirinta maalmaha tan iyo markii aabaha Alberto uu ka tagay taas oo la micno ah in Alberto keli ku ahaa jasiirada sanado badan ilaa Luka uu u yimaado si uu saaxiibkiisa u farxad geliyo iyo si ay mootada u helaan Luka wuxuu go'aansaday inuu keligiis u tartamo maalinta xigtay maadaama aanu qoyan karin wuxuu xirtay dharkii quusitaanka ee duuga ahaa wuxuuna istaagay khadka
sanadka bilowga sida caadada u ahayd kool wuu khiyaameeyey isagoo saliid ku xardhay kaasiyo si uu u siibto oo uu kaga hormaro dabaasha laakiin intii lagu jiray tartanka kalluun yaryar ayaa ku soo dhacay saliidda oo bilaabay inay cunaan taas oo ka dhigtay mid ka gaabiya oo booska ugu dambeeya ayuu galay intii tartamayaashu dabaalanayeen Luka wuxuu dhulka badda kaga socday dharkii quusitaanka laakiin cadaadiska ayaa jebiyey muraayada biyuhuna way u soo galeen markuu biyaha ka soo baxay wuxuu isku dayay inuu wejigiisa qariyo si aan loo arkin qaabkiisa bahal badeedka ah balse kool ayaa lug ku hakiyey wuxuuna ka tuuray koofiyadiisii inkasta oo uu weli si fiican isku qariyey markii uu gaaray marxaladda baastada Luka dhibaato ayuu kala kulmay maxaa yeelay weligiis fargeeto ma isticmaalin Juliet oo waqtigaas ku jirta kaalinta koowaad ayaa caawisay dhanka kale kaasiyo ugu dambeyntii xeebta ayuu yimid gareeno booskiisa ayuu qaatay oo si dhaqso ah ayuu u cunayay laakiin markuu arkay in Juliet hore ugu gudubtay baaskiilka kool mar kale ayuu khiyaameeyey baastadii gacanta ku qaaday oo dhan mar qura ugu shubay afka gareeno markii cunista la dhameeyey Luka oo waqtigaas ugu dambeyn wuxuu yimid qaybta uu si fiican ugu tababaranayay oo baaskiilka ah inkasta oo uu ka dambeeyey oo uu haysto baaskiil aad duug u ah haddana wuxuu si dhaqso leh ula soo baxay awoodiisii ilaa uu kaalinta koowaad uu ka gaaray laakiin arrimuhu si fudud uguma dhammaan markii uu buurta dusheeda gaaray roob ayaa bilaabay inuu doo isagoo aan qoyan karin Luka wuxuu ku dhuuntay dabool taas oo keentay inuu lumiyo kaalintiisii koowaad isla markaas ayuu Alberto yimid isagoo si tadallad si uu saaxiibkiis u caawiyo laakiin kool markuu arkay wuxuu ku dhaqaaqay baaskiilkiisa wuxuuna ku tuuray lugtiisa taas oo ka riday dalladii kadibna muujisay qaabkii dhabta ahaa ee Alberto markii uu ogaaday in Alberto yahay bahal badeed kool wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto oo shaba ku tuuro si uu u qabto oo abaalmarin uu helo Luka isagoo arkay in saaxiibkiis khatar ku jiro wuxuu ka baxay meelihii qalalay wuxuuna bilaabay inuu baaskiil si degdeg ah ugu soo wado si uu u badbaadiyo wuxuu dadka hortooda ku muujiyey inuu isaguna yahay bahal badeed kadibna wuxuu Alberto ku qaaday baaskiilkiisa labaduba waxay bilaabeen inay buurta hoos uga daataan halka kool iyo Juliet daba ay socdeen markay soo degayeen kool ayaa isku dayay inuu ku dhufto falaaraha dhowr xabo ah markay Juliet garatay in ay saaxiibadeeda waqti yar kaliya ka haray in la qabto waxay isku tuurtay kool taas oo keentay inuu dhaco oo baaskiilkiisii kala jabo markay arkeen Juliet oo dhulka ku dhacday halkii ay ka carari lahaayeen Luka iyo Alberto waxay go'aansadeen inay dib ugu laabtaan si ay u caawiyaan laakiin Maasim ayaa arkay wuxuuna qaatay falaar badeed si uu ugu daba ordo oo uu dilo isla markaas dadkii magaalada oo dhan ayaa hareerayay koolna dadkaas ayuu ka mid ahaa ase yeeshee markuu Maasim arkay in bahaladu isku dayayaan inay gabadhiisa badbaadiyaan ayuu ogaaday inay yihiin Luka iyo Alberto wuxuuna go'aansaday inuu difaaco isagoo sheegay inay iyagu guuleysteen maadaama ay xariiqda dhamaadka ay iyaga ugu horeeyeen kool isla markiiba waa uu diiday isagoo yiri kuwaan bini aadam maahan garsoorihii ayaa haddana yiri dhab ahaantii waxay marka hore dhaafeen xariiqda sidaas darteed iyaga ayaa guuleystay si kastaba ha ahaatee kool weli wuxuu rabay inuu qabto si uu abaalmarin u helo laakiin markay ugaarsatadii arkeen Maasim oo wehelinaya wiilasha dhammaantood way ka tageen kool keligii ayaa ka haray isla waqtigaas waalidkii Luka ugu dambeyn wiilkoodii way heleen waxayna arkeen in wiilkoodii abaalmarin uu ka helayo dadka magaalada inkasta oo lacagta abaalmarinta aysan badnayn haddana Luka iyo Alberto waxay ku iibsadeen mooto duug ah oo ay magaalada ku wareegaan hadda oo bini'aadamka iyo bahalada badda nabad ayay ku wada nool yihiin dhammaantoodna waxay ku wada raaxaysanayeen farxad magaalada Portoroso laakiin maadaama fasaxyadu dhammaanayaan Juliet waa inay ku noqotaa magaalada Genoa si ay hooyadeeda ula joogto oo iskuulkeeda u sii wadato saldhigga tareenka wiilashii ayaa u tagay si ay u macsalaameeyaan markii Juliet tareenka ay fuushay Alberto wuxuu u sheegay Luka uu mootooyinkii iibiyey si uu ugu gato tigidh uu saaxiibtiisa ugu raaco magaalada Genoa si isaguna waxbarasho uu helo markaas ayay waalidkii Luka yimaadeen iyagoo wata boorsooyinkiisii waxayna ku yiraahdeen in wax walba la diyaariyey isla markaana uu joogi doono guriga hooyada Juliet Luka wuxuu ku casuumay Alberto inuu tareenka la raaco laakiin Alberto wuxuu doortay inuu Maasim la joogo si uu uga caawiyo kalluumaysiga kadib macsalaamo murugo leh Luka wuxuu tareenka la raacay Juliet isagoo u socda magaalada Genoa si uu u fuliyo riyadiisii ahayd inuu iskuul tago oo uu wax barto